maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyadu had diyaar garoobeen godkooda biyo ugu soo galeen madaxweynaha sanadii bar baa u hartay sanadii barkaas lagu xiran karaa isleeda waxa loogu darayaa 5 sano hadii ciidana ka mid tahay sanadii bar ilaa iyo gobolada lagu xiran karaa isleeda xalay dagaal buu ku dhawaaqay marka wuxuu khasab u leeyahay inuu 3 sano loogu daro waa khasab duma madaxweynaha maamul goboleedyada weerarayo 5 sano loogu darayaa sababta madaxweynaha maamul goboleedku waa xaasaska Itoobiya safiyan weliga maarta madaxweynaha maamul goboleedka Itoobiya caay weliga ma maqasho iyo may ka jawaab madaxweynaha maamul goboleedka Itoobiya caay weliga maarta macaya miya weliga adu maarta ka jawaabta adaa su'aal ugu weydiiyey wariyahay maya waxaa ku weydiinayaa micnaha adiga ma arka miya weliga war ma caay karaan ma nin baa sabab maxaa keenay inuu soo Itoobiya samaysatay iyaga dhab gebigoodba ba caay karaan oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi rooble soo dhawow waa dhawa waxaan rabnaa maanta su'aalo kooban inaan kaa weydiino arrimaha ciidanka ciidanka darajadee ka gaartay adiga kabtan ka gaartay haddii aan ku dhaho maanta generaal noo sharax oo dadka Soomaaliyeed u sharax macnihiisa maxaa waaye generaal waa 9 xidigood baa lagu qaataa xidigna waa 3 sano asyaanati baa la yiraahdaa marka la isu geeyna 24 sano general lagu noqdo 24 sano generaal markuu wadamada Yurub iyo China iyo Mareykanka iyo 7 kuna ciidan u xukumaan wuxuu xukumaan 75 kuna ciidan laakiin kuwa Soomaaliya 1500 bay xukumaan iyo 600 general hadda Soomaaliya u joogo 500 askari baa generaalada Soomaaliya halkay ku dambeeyeen 85 ugu dambeysay janan Soomaaliyeed oo darajo la siiyo oo academic ah oo kaartada qaadan kara oo u qalman generaal wixii ka dambeeyo dhan waa jamhadihii iyo qabiiladii oo hadda generaaladan Soomaaliyeed tusaale generaal Saadiq John oo kale hadda oo xildhibaan ah ma weerari karo Itoobiya kaartana ma diyaarin karo soo Cabdiraxmaan Shukur xirisanaya baaba noogu horeysay ciidamada Soomaaliyeed hore ma aqoon kuma jirin generaal ma ahan maya waqtigii dawladda ma jirin isaga dhab maxaa u taqaanaa marka waxaan aragnay soo Cabdiraxmaan Shukur xirayo la xirayaa markaas noogu horeysay marka ma noqon isaga tii militariga haystay maxaa la yiraahdaa muxuu yahay marka generaal duusan ahayn generaal oo kuliyad ma waa qof loo yaro dhar loo geliyay haddii adiga generaal aadan u aqoonin hadda generaal sheego isoo la xiray aragnay generaal hadda Saadiq John generaal u aqoonin maxaa u taqaanaa marka ma waa aqaana generaal waxaan aqaanaa qof kaarta hadda Ethiopian soo waddankeena ma jooga janan waxaa la rabaa inta TV-ga soo istaaga qabsan kara iyagoo dhan Ethiopian waddanka soo gashay safiyan isaguna saas maahan haddaan ku weydiiyo waxaa kaloo jiro generaal dhalinyaro ah generaal Oduwaay oo kale hadda isaga laftigiisa waxa lagu siiyay qabyaalad maahan kuliyad maaha academic ma sababta markuu hadlayo sida military uma hadlo generaalada hadladoodu waa tirsiin waa amar halkaas la aadaya meeshaas la weeraraya bas asagana maxaa taqaanaa marka isaguna ma dadkii gadaal laga siiyay darajada ma waxaan u aqaanaa dadkii ku qaatay qabyaalada darajada waa gartay ma academic waxa la yiraahdaa qof maanta intuu soo istaago madaxweynaha Soomaaliya maanta ma oran waddanka dagaal hal la geliyo waxaan rabaa janan ciidamada Itoobiya dhan hubka kala hari kara ma ku jira marka ma ku jira haya maya waa gartay ma ku jira ka jawaabo hadda tusaale hadda ku soo weydiiyay ka jawaab sax aqli bani maya tusaale ku weydiinaya hadda ka soo qaad generaal sheego oo kale maxaa u taqaanaa asagana wariyo adiga nimanka ku wareegsan janana ma aha iyo kuwa maamul goboleedyada joogay waxa janana lama yiraahdo maamul goboleedyada janada joogay iyo kuwa maxay isdaamaan waa jamhadihii Soomaaliya soo weeraray oo inta la qaybsan leeyahay qabiil kasta 5 janan ha kaysay safiyan markaas waxa Soomaaliya waxa jooga 5,000 oo janan China xataa mala India mala okay cornel noo sharax marka cornel waxa isaguna waxa weeye 3 darajo weey gaashaan la hoose iyo gaashaan la dhexe iyo gaashaan la sare ba cornel dina safiyan saddexdaas la isku daaqo corneladii Soomaaliya waa dad qoobe wixii hadda joogana madaxa looga jira idan looma dhiibi karo waa gartay roble waxaa kaloo ku weydiin rabnaa Soomaaliya shalay ilaa iyo maanta hadda aan kula hadlayo hub ayaa dagayo hubkaas maxaa isleedahay Itoobiya lagu weeraraa ma hubka horta Soomaaliya ma la siiyay misoo siiyay yaa siiyay hadii hubka horta Soomaaliya ma lama siin noocaas dawladda ma bixiso hubka waa hubkii 77 ruux siiyay Masar 77 qoriga ugu dheer baa fiiriyay moogta ciidan baan moogta sax 180 kilomitir wax ka dila Hawsar baa leeyahay oo hubka hadda Soomaaliya la keenay midka ay jiidanayaan rasaastii saruush kaliya laga helaa
diyaaradaha labada diyaaradoodna waa kuwii Mareykanka maxaa dagaalka Vietnam way macnaha maxaa ka wadaa hub manoola keenno qashin baa laga soo كان waxa weeye hubtu qoobid oo Soomaali ma qashin u baa marka rasaastiisina adduunka dhamaatay mid raqiisba lagu siinaya عبد القاسم بوصل حري حسن الشيخ لا سيسي واسكو موقت عبد القاسم سفيان موجود سفيان لا موجود maxaa ku weydiinaya عبد القاسم سيسي دم شديد وفرقوين سموجود اخوانكم كاس حريه سموجود su'aal kale ku weydiinaya roble ka waran hubkan oo hadda ilaa maanta dagayo ilaa berida dagayo isbuucan dhan wuu dagayaa sida la sheegay Soomaaliya lagu xoreynaa Soomaaliya maamul goboleedyada madaxweynaha maamul goboleedyada hadiyaar garoobeen godkooda biyo ugu soo qaleen madaxweynaha sanadii bar baa u hartay sanadii barkaas lagu xoreyn karaa isleeda waxa loogu darayaa 5 sano hadi ciidana kamid tahay sanadii bar ilaa gobolada lagu xoreyn karaa isleeda xalay dagaal buu ku dhawaaqay marka wuxuu khasab u leeyahay inuu 3 sano loogu daro waa khasab madaxweynaha maamul goboleedyada weerarayo 5 sano loogu darayaa sababta madaxweynaha maamul goboleedku waa xaasaska Itoobiya Safiyaan weligaa maarta madaxweynaha maamul goboleedka Itoobiya caay weligaa ma maqasho ha iyo may ka jawaab madaxweynaha maamul goboleedka Itoobiya caay weligaa maarta macaayo miya weligaa adu maarta adu weligaa maarta ka jawaabta adaa su'aal lagu weydiiyey wariyahay maya waxaa ku weydiinayaa macnaha adiga ma arka miya weligaa war ma baxay karaan ma nin baa maxaa kartaa maxaa keenay inuu san Itoobiya samaysatay iyaga dhab gebigoodba baxay karaan oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi roble waxaa ka mid ahayd saraakiisha Soomaaliya maanta Soomaaliya iyo Itoobiya dagaal xun baa ka dhaxeeya dagaal xun kama dhaxeeyo xaaladooda meel xun ay maraysaa waxaa dagaalsan Abiy bas oo Soomaaliya Itoobiya isma dagaalsan Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Xasan Sheekh oo wax ciidan haysan oo hub tiro badan loo soo dejiyay oo ciidankii farmaajo oo ka tagayna tirtiray saraakiishina tirtiray baa wuxuu rabaa Itoobiya in la weeraro Itoobiya marka wuxuu uga jeedaa ukaadi waxaa sheegtay Xasan Sheekh inuu saraakiishii tirtiray soo ku tirtiray de kulli waa leedahay al-shabaab tirtiray hubkan baa hadda al-shabaab qabsanaysa hubka hadda soo degaya laba habeen saddex habeen meelaha waxaa ula jeedaa dagaal qorsheysan ma qaada miya war adiga dagaal qorsheysan ba adiga hadii maanta madaxweyne laga dhigo isla maanta dagaal ma qaadi lahayd saxaabad diyaarsan lahayd waa gar ka jawaabtay hadda waxay jawaabi kar maxay warsanaysa ما madaxweynihii Soomaaliya laga dhigo maanta dagaal ma qaadi uma socdo ilaa madaxweyne noqday fiiri war adigu ma samayn lahayd baa lagu yiri soo adiga uma socdo kama jawaabi karto ما أنا كنت سؤال هذا بسؤال سيدا فيري مشاريع السوشيال ميديا ودد باك اب ما يشرع أنا انترفيو كقاضي هذه ما قاضي سيد ما قرأته لكن مركا وكاجا جواب يا سؤال هذا دب وديو وحرب إنا كويدي إثيوبيا Soomaaliya hadda ma qabsan kartaa isleedahay Itoobiya wadaalanta waxaynu soo weeraray mantaqaano hadda oo bawrta saarsan waa Oromo gowdhe iyo Qoti iyo Uraaga iyo Walla Uraagadii ma xistaa wax business ka jirtay waa la tarxiilay askar baa laga dhigay hadda ma jira Itoobiya kuma jira waxayna la jooga wax noocaas Tigrayana ma joogaan Amaarana ma joogaan Tigraya hal qof Soomaaliya kama joogo kuwaana dilay askarta maadaama saraakiisha hore Soomaaliya ka mid ahayd wax kaarta ah hadii la dhamaanto Soomaaliya Itoobiya way isdagaalayaan wax kaarta ah afarin ahayd ama ugu deeq lahayd ciidanka Soomaaliya ma jiraan ciidanka Soomaaliya waxa la ciidamada Soomaaliya joogo Itoobiyaanka qofka kala haro waa arkeen xoog badnaantooda iyo dharkay xiran yihiin iyo waa ka dhigan kartaan hubka Tigraya baa xirsado 6 milyan see looga dhiganayo in hub wato oo kama qaadan karto ciidamada Itoobiyaan weligood dagaal gelin weligeed Itoobiya cidna laba dagaal Soomaaliya mooyaan weligeed oo Soomaaliya la dagaashay marka Itoobiya ahayn Soomaaliya waxay la dagaashay gumeystii soo weeraray Itoobiya Itoobiya la qabsan lahayd hadii Soomaaliya jiri lahayd gumeystuu doonyo ku yimid adigu ogday ya Soomaaliya la dagaashay Faransiis iyo Ingiriis iyo stupid iyo Talyaani iyo qashin oo dhan bayna soo weeraray dagaal ka garaac Soomaaliya waxay bartayba in Ingiriiska channel laga dili karo 1800 bay channel ka dilay hadda laga ma dili karo hadda channel Ingiriis laga dili Sufyaan marka Soomaaliya waxa gubaya ma ahan Itoobiya iyo Kenya iyo waa askar Ingiriisku leeyahay waa Ingiriiska waxa Soomaaliya gubay Ingiriisku ma jecla Soomaaliya Soomaaliya marta Ingiriiskana uu iska dhiibay waxa isaga dhiibay in la adoonsado jecel qofka Soomaaliga qofka cadin uu adoonsado waa jecel yahay sabab hadda Soomaalida Yurub iyo Mareykan joogta isma taaban karaan iyaga ka baqayaan inta ilaahay ma hadan min ilaahay ka baqayaan babad كل ديك وضع سوسة أوريا اسمه طابع كران
xabsigaa la geenaya ayagoo khaniisiinay soo wada noqonaya kuwa dhacay waa baqaya Soomaalidu taasay ka baqaa moogta in la kursado xabsiga lagu kursado waa gartay marka u malayn maayo isma taaban kara arrintaas maxaa ku caddayn kartaa marka kulli kilkilaha tunkay ka ciidan Soomaaliya oo dhan waxaa moodaa dabaabasir in laga jaray markay Yurub iyo Mareykan yimaadeen hay kulli break qaade waa kala adeerkood inay yimaadeen bad man boodid wada inuu ka maqayo diini ka maqanto dad ka maqan yihiin oo rajo leeyihiin ba mamud si fiican dadka hata Soomaalida qurbaa joogta ha kuwa halkan lagu dhaldhalaya rajo malew lama kala yaqaanaan ba akhriyad maxaa dhacay ma kala yaqaan hadda ayada dhimantay waa farxay wax kuleeyaan lacagta loo diri jiray soo istaagi mayso waa anta say wallahi ba huda way la soo boodaya midaas taarkota onka muumin ku wada yo ay saacena raaxa lacagta loo diri maayo dhaafsi baash waa gartay yaalkan qolofku Soomaali buu weegin motorku waa Yurubiya dadkan intay dhimanayaan kaliya la sugay Soomaali Ethiopia Soomaaliya adag weligeed Soomaaliya adkeed way ku maama waxay ku leedahay 40 sano ayay Soomaaliya maxaa la dhahaa burbur ku jirtaa iyo dagaal iyo taarta ay ka dhageyso al-shabaab tagi waa weydii ma qabsataan ma ku Soomaaliya marka lagu qayilayo oo laga buuxo yaan weydii waxaan ku leeyahay Ethiopian 100 milyan Soomaaliyeed maxaad Soomaaliya u qabsan weydeen wax dagaalsan daarood yaawi isa oo daalan ma u tagtaan oo gumaysataan safiican ma qabsan karna yiraahdo waxa ku baxay marka laakiin waxaan ku maahmaanaa bay yiraahdeen al-shabaab alle Ethiopia alle al-shabaab yeelam Ethiopia yeelam macnaheedu tahay maalin kasta 200 haday al-shabaab dilays maxaan ka doonaynaa camal annaga balaynayna maalin kasta Soomaaliya 200 dhimata al-shabaab baa dadka jidka maray dadka madaxda iyo kulli Soomaaliya waxa jooga gaalay u yihiin laba saacan ku soo qaban karaa iyaga dhab telefoon baa lagu haagaya haddii Soomaaliya aniga la idii wala yiraahdo jananka militariga ta al-shabaab kala sheegay soo dad qaawano duurka degan oo telefoon lagu haagayo oo musqul male oo isbitaal male oo meel saacada ma xasaani magaalada qabsanay bal haddii lagu dhaho al-shabaab Soomaaliya waa taqaanaa raas caseer raas kandooni ma taqaanaa qaabkee ku wajihi lahayd al-shabaab haddii lagu dhiibi lahayd Soomaaliya ma kusoo jooga hadduu kilibkan gaarayo inta yarta u sheeg waxa ku tiraada shirkadda Hormuud waxa ku dhagsataan mashiinkaas oo idin dhageysanaya maadsiyada iyo codka lagu hadlay iyo telefoon numberka ka bacdi GPS bad ku soo qabanaysaa signal baa lagu soo qabanaya qofkan hadlaya isaga dad qofka hubo wataay ma la soo qaban karaa macnaha qaabka kaarmi oo baanta mise qofkii inuu soo qofka dadka leeynayo mina aragti miyaarta safiican loo dilaa iyo waa gaar hay laakiin marka aan qofkan hanjabay aragto jiqo ku jira muxuu soo diri karaa telefoon Soomaa telefoonka mashiin ku xiranaysa Yurub Soomaalidu maxay ka baqaan intaqad inay dhageystaan Soomaa saasay u dhageysanaya taliyaha booliisku dawladda dhan baa dhageysanaysa shirkadda marka awood inay hesho waaye macnaha codadkaas u dhageysanaysa sideeda safiican mashiin baa lagu xiranaya professional loo yeeray engineer computer designer baa loo yeeray ciidanku waa inay access u leeyihiin in macnaha shirkadaha inay dhageysan karaan inay dhageysan karaan iyo anigu kilibka hore maxaan ku sheegay awoodaan dhageysan jirnay markaan dhageysanayna kulliga waxaan 16 jir 15 jir waxaana loo diyaarinayo Soomaaliyadu oo hadda gubatay inaan mustaqbalka anagu xukunno irka aad u weyn ma fahantaysay ma fahantaysay safiican marka telefoonadooda dhageysanaya ka bacdi meesha joogaan baa signal loogu tagay gantaal baa laga dhaxinaya iyaga gabigoodba maanta al-shabaab marka la dhaho in Soomaaliya laga tirtiro min isku raacsan yahay horta anu waa ka tirtiri min isku raacsan yahay anigu dadka xalooshooda ay weydiin laga tirtiri karaa ay weydiin anigu dadka Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ma aha qabiilada dad Soomaaliyeed ma aha ma la tirtiri karaa dadka mise lama tirtiri dad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed shaki qabaan oo waxay shaki qabaan dawladda inaysan raali ka ahayn al-shabaab la tirtiro waraade dawlad la'aan al-shabaab ma la tirtiri karaa waa la tirtiri karaa qaabkee Soomaaliya waa la tirtiri karaa waxa loo yeeray wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda raiisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadday istaageersan yihiin ciidamo waxaa la diyaarinayaa 2,000 oo ilaa 4,000 askari aniga noocayga kale loo dhiibaya aakhiri adduun meesha jiraan baa ugu tagayn aakhiro iyo adduun meesha jiraan kulataana lagu xirayaa baabuur baanu saarana qaramada midooba baabuurta waa ka xoogi lahaa aniga iyo ciidamada Itoobiya kuwa meelaha Soomaaliya jooga ama mushaarkan kala baranayna ama hubka naga siinaysan ama waddanka ka baxaysan get out my country get out of here all of them maxaa waddanka ka qabateen dagaal u timaada gala idinka naga horeynay inaad dhimato hadda way ku jiraan oo cirka ta ayaga soo dagaalamayo oo hadii jikaar waa kilibkaagu waa maxay dadka ma dagaalamaan lacag ba iska qaata qofka Soomaaliya 200 qaata ayuu ku 100 qaata 500 xoog baa loo baahan yahay waxa ku cadeyn kartaa inaysan maxaa dhahaa nimankaas aysan dagaal ku jirin cadaanka
إني مربدنا وركوان الناس على العقبة يكون قاطع وأنت كأنه دنتال السوقية سوماليا دي مشهد السوقية dadkan waxa loogu talagalay badda Malay baa looga soo guraya waa la siiyaa Ethiopia Malay baa loo soo guraya waa la siiyaa dadkan shaqo kale ku jira ciideena xadaya mushaar bay iska qaataan dagaalka sheegaysan oo ka dhimanay muxuu laba baawro al-shabaab habeen isku qarxinay halkii sano hal safiyan lama dagaalamaan al-shabaab ma raadsadaan xiriyay degayn saaxir ku day kara nin wadanka dagaal u yimid saaxir u deganaan kara wasiirka shaqadiga aniga laga dhigay wadanka iyagoo qaaqaawan bay ka bixinayaan oo diyaar saaran oo kaligood wasiir gaashaandhigga Soomaaliya ma taqaan hadda qoom u leedahay mawli waxa la igu yiri laakiin waa TikTok buu ku jiraa waa gartay TikTok ku jiraa leeyahay baa wasiir gaashaandhigga ninkaas Ethiopia weerarey macnaha xeerka ciidanka ma kamid ah ma social media la isticmaalo social media hadda teknolojiyada waa la isticmaali karaa social media laakiin wasiir gaashaandhigga Talyaaniga masuuliyadda waa mamnuuc in la bartaba waa mamnuuc wasiir gaashaandhigga TV soo istaago inuu meel dumar iyo carruur u hanjabo iyo dagaalada ka shaqeeyo waa mamnuuc soo markuu soo istaago haddii wasiir gaashaandhigga shalay ka dhigo caawa TV-ga markaad soo istaago amar baa bixinaya 7 cisho kasta sharciga soo baxay ninkii gabar Soomaaliyeed ku fusada ciidamada ka mid ah isagoo meesha istaaga hal ku waa amar right now haddii lagu dhaw hadda 24 saacadood ah haysataan roob leh xamar nadiifi maxaa sameyn lahayd afarta albaab baa ka xiriirna labada badda iyo labada xeeb ay buunto labada xeeb marka qof kasta aan sameyn la tasro min shib shakri allah hay markii 3 milyan baa deganay barsama safiyan tasro min shib qof aan guriga kama soo bixi karo $1 baan lagu iibinay marka warqadaas tasro min shib waxa lagu qorayo waa computer lagu shubaa marka taa loo kala saaraa dumar iyo carruur iyo dad waaweyn iyo dad yar yar sababtii ayaa marka wax loo samaystaa in loo shati leeyahay iibsada muqdisho qof kasta shati iibsada beeraha shati iibsada dawladdu Soomaaliya dawladnimo in soo celiyo de al-shabaab iyo way iibsan karaan waqtiga shati way qaadan karaan xagga diinta sida waxa soo computer soo lama gelinay magac Soomaaliya dhigayo sida Europe oo kala loola dhaqmaya qof kasta numberkiisa baa la dhageysanaya waa la fududeynaya waxa loo yiri expert safiyan dadka muqdisho jooga qof kasta meeshuu degan yahay iyo wixii soo kaarka kuma qorin soo computer kuma nashbad abadu degan yahay soo ma naqaan dalba numberkiisa lama yaqaan wuxuu sameyn karaa iska waa Europe oo kale markii loo sameeyo guri qof kastana gurigiisa la shati iibso ama soo dhac ama adigu lahow ama halahaan shati iibso beertana shati iibso baabuurta magaalada yaa soo dhac baabuur kasta wuxuu dhiibaya $10 muraada waxa looga dhajinayaa bambiirada waxa weey muqdisho kaliya laga leeyahay meel kale ma aadi karo xaafadda uu degan yahay baa ku qoran madiinada uu degan yahay baa ku qoran muqdisho madiino wax saas afar number baa la raacinaya مثلا كمبيوتر baa lagu sameeynaya waa Europe oo kale isoo safiyan Soomaaliya muqdisho waxa jooga in la kaantaro marka hore waa in loo sameeyaa documenti iyo tasrimin shibiyal iyo dadka la kala saaraa inta ma qaadato